boqolkan kiish oo sibir ka ah oo Soomaalida inta badan ayuu yaqaanin shamiindo ayaa maanta xisbiga Daljir waxa uu gudoonsiiyay gudoomiyaha guddiga iskaashatooyinka gobolka Banaadir si dib u dhis loogu sameeyo xarunta iskaashatooyinka oo ku burburtay qaraxii horaantii bishan saddexaad ee sanadkan ka dhacay nawaaxiga Hotel SYL ee magaalada Muqdisho. Xildhibaan Xasan Cabdullaahi Cascasi oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka maamulka Galmudug oo la hadlay warfidiyeenka ayaa faahfaahin ka bixiyay boqolkan kiish ee la gudoonsiiyay hormuudka guddiga iskaashatooyinka gobolka Banaadir. bismillaah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah wa ba'd. xooyaha guud oo xisbiga Daljir mudane Axmed Macalin Fiqi gudoomiyaha iskaashatooyinka iyo rag kale oo la shaqeeya warbaahinta iyo dhammaan xubnaha xisbiga oo halkan jooga waxaan maantay xisbiga Daljir anoo magaciisa ku wareejinaya iskaashatooyinka Daldis oo udhis loo soo gaabsho udhis boqol kiish oo ah shamiito oo uu ku daaqay xisbiga Daljir taas oo looga qayb qaadanayo xaruntoodii oo aan joogno dhismaheedii oo xisbigu qayb qaadanayo waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa sida isugu hawlaan inay dalkooda dhisaan